xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed maamulka degmada Baydhabo kan gobolka Baayo waxgaradka ku nool magaalada Baydhabo ayaa ka qayb galay kulan qayladaan ah oo ay kaga hadleen biyiri ka jirta deegaanada ka tirsan gobolka Baay. Maxamed Aadan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo. Ayadoo lagu guday jiro gabagabadii xilliga kuleelaha ayaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada Baay iyo Bokool waxaa ka jira biyari aad u xoogan taasi oo saameyn ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada iyo kuwa degmooyinka qaarkii ku nool. qaar kamid ah xildhibaanada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo malaaqyo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo maanta shir jiraad ku qabtay gudaha magaalada Baydhabo ayaa waxa ay kaga hadleen sidii biidhaamin loogu sameyn lahaa dadka ku dhiban degmooyin dhowr oo ka tirsan gobolka Baay. deegaanka Goofgaduud Shabeelow oo kamid ah deegaanada imika la soo sheegayo in marxalad biyari halkaasi ay ka jirto dadkuna ay ku dhib qabaan helitaanka biyaha ayaa xildhibaanada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waasiyada dhaqanka waxa ay ku baaqeen in halkaasi gurmad biyo la gaarsiiyo si loola tacaalo dadka biyarada ku haysta deegaanka Goofgaduud Shabeelow. qaar kamid ah mudanayaasha baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa dhanka kale waxa ay uga baaqeen jaaliyadaha ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya in gargaar halkaasi ay gaarsiiyaan si loo daboolo baahida dhanka biyaha ku aadan. dhibaatada oo uu geeka ka shirka jiraadan gobol hayn oo ay shal duun may ku mid aha deegaanka la raaw Goofgaduud Shabeelow oo biilaan haysata in badan haysatay anka guulaysan inta ku hor in eel oo riiga umataas anfa awna lenin haln ko ma in sheegana hay'ado oo gobolku mas'uusay maamulka Koonfur Galbeed geeka deegaanadu ku arhamayaw la ku bilaw madaxweynaha Koonfur Galbeed ilaa wasiiradiis gudoomiye baarlamaanka dhamaantii oo ma in sheegana anka baaqana inisi anka dhaqsa badan arintaasi walan ku qobadaana uu gurmudan waan eedan dhiirigeliyaan taasanka baaqan hortay adoo maamul dadka kale oo dadweynaha ganacsatada hadii ay iyo hadii shakhsiyaad ay doon walaanay oo geeka dhibaataysan oo geeka adduunyo oo aanka doron feeling haln wala amata malhatuwa maadaama dhibaatadaas ay yaan bulshadeenta oo deegaanka Koonfur Galbeed mise gaar ahaan gobolka Baay ka tirsan yoona ma in sheegana in walaanyo joose la qiibsadaan dhibaatada haysat oo gurmudan dan kasta hadii ay shakhsiyaad hadii ay ganaas hadii ay NGO dhamaanto ma in ka baaqana in gurmudkaasi wal ku qobadaan meel koowaad Goofgaduud oonkii haay ilaahay hana deeqa walwal bilaahay deeqe laakiin may eed dhibaato ku jirtay oo walyeerka biyahan dhawna biyo qareera nagadeen dadweynaha ganacsiga haay dadka suuqa tuulooyinkaas dhaladaayay masixigta bahaayay dadka suuqa bahaay wal iska dareen ma ku halna hay'ado caalamka ma ku halna hay'ado localka walba may ka deeyaanay mas ku codsadaanay dadka jaaliyadaas ku mid ah mas'uulaadiyo meel roogan oo ka baahan mas ka oomanin mas uduradaas oo hoobadhiyo aragday biiblan waay udurna meelba goobta bashaban biyooda jara walban bajaraan saas dartiye maysiin ku codsadaana inaysan hadeertaan dadka banaanka oo jaalide masan hayna dadka oo localada oo gudaha hay'ado hata samafalka saas dartiye may eed injeelna inay wal eed oo muhiim ah inay lagu wada doontaan. Malaaq Ali Boor oo ku hadlayay magaca malaaqyada dhaqanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isaguna goobta ka hadlay ayaa dhankiisa ka dalbaday ganacsatada in gargaar biyo goobta ay gaarsiiyaan. لأن هذا ما هتكلالك بدي أضربنا جيلالك بدي ورول برين ملي هندو دوائنس كمان برين ولا سد كتاس أما البلد جران ما إنشاءنا المسلمين الصوماليات لانكستو أو عن كجيس ذكر هي هذا سما فرق هاتوي كان أسطد هاتوي شخصيات أو قدام كذا أو إنشاء هاتوي يا ما هم أول كروج إلا أفرنا موضوع ما تباوش عن كجرنا إني أرنتي هذا والبلا عند القوة معمول كان شاغني اتكستو ميدي هذا والقوة كرون شاغني لكن ما يفضانه أرنتي هذا لانكستو والكجيس كروني والكجيس
iyadoo lagu guda jiro bartamaha bisha Abriil ayaa waxa isu soo taraya qaylada ka soo yeeraysa qaar kamid ah degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada Bay iyo Boqol kuwa oo xilligan biyari bahsan soo wajahday. Maxamed Aadan Socdaal, Jubaland TV, magaalada Baydhabo.